السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koobaad waxaan ka cudur daaranayaa muuqaaladii toddobaadlaha ahaa oo waayadan aan soo gelinin. insha Allah horta ma ballan qaadayo inaan toddobaadba soo gelinayo, taas waa ku fashilmay. waa qarinayaa in awal waxa rabay jimco walba muuqaal yar soo daayo. marka qaar waxaan ka hadlaan weynayaa, marka qaar waa mashquulayaa, marka qaar waa ilaawayaa. أنا واحد جواز أركيا وأنا قليلين معركتي مقالك عربين عن إذا لو ذاقو إن شاء الله هذا كدي مركي أحب وحقون عن هلو عن كهرلو بإذا لو ذاق دونا ما أنت مركا وحرنا إذا لو ذاقو موضوع يراكوبا موضوع أسوحه يهي ولا ليال عن ربنا كهرلو وشقالها ضدك ka shaqeeya meelaha ganacsiyada ah iyo dadka loo shaqeeyaba. laakiin inta badan hadda xoog waxaan saarayo oo mawduucayga ku saabsan yahay waxaan soo diyaarsaday waa dadka loo shaqeynayo say u dhaqmayaan. yacni marka laba qolaa u kala qaadaya dadka loo shaqeynayo, dadka u shaqeynaya, yacni dadka u shaqeynaya laba qaybood baan kala dhigayaa. qaybta koobaad waa qaybta Soomaalida ah. marka inta badan waxaan ka hadlayo waa dadka wadankan Kenya jooga. وموضوعي aad u quseeyaa laba qaybood oo kala qaadaya shaqaalaha u shaqeeya, shaqaale Soomaali ah iyo shaqaale dadka wadanka u dhashay madowga ah. marka waxaan ku hormarayaa oo shaqaalaha horta madowga ah sida qaabka yacni ay u dhaqmaan. walaalayaal dad muslimiin aynu nahay, qofka ganacsi lahaanaya Ilaahay siiyay inuu ganacsi yeesho horta waa inuu Ilaahay u mahadnaqaa. midda koobaad 5 daqiiqo aan ka badiyay mar rabo ma aqaan saa uu soo koobi karo mawduucan 5 daqiiqo, laakiin waa isku dayaa. midda koobaad dadkaas ku shaqeynaya waxa la rabaa in Ilaahay uga baqdid. haddii Ilaahay nimco adiga ku siiyay, Ilaahay uu hoostaada geeyay, Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas iyagii ay noqotay irsaaqadooda inuu adiga kugu xiro inaad ula macaamiltamin sidii dad adoon adiga leedahay camal ah. tusaale ahaan qofkan u baahan yahay shaqo ma haysto, wadanka uu ku nool yahay waa ogtahay waa overpopulated, waxa laga yaabaa wax kale uu heli kara ma lahan. cadaalad darro weeye inaad ku liidid waxa aad siinaysid. tusaale ahaan mid kamid ah oo hadda ka hor alaab ii soo qaaday baa la sheekaystay. waxaan idhi ka war hadda ma dhowin waqti hore kale ahayd, waana sidii hadda u maleynaya haddii sanadkan dhexdiisay ay bilowgiisii. waxaan ku idhi ka waran waxa aad qaadatid. marka aanu inta badan waxaan sameeyaa faan wallahi gaba aan marka wax ii soo qaado khasab ma inaan lacag siiyo, laakiin waxbaan siiyaa oo kuwa dukaanka waxay ku sheegayaan anaga mushaar siinay iska daa waxba laga ma rabaa waa lagu qaadiyaa aad gurigaaga lagu geenayaa. marka waa weydii waa wareys waxaan ku idhi maxaa qaadataa. wuxuu ii sheegay yani wax aad ula yaabay subhanallah, qof dhan oo Nairobi ku nool waxa intaas lay qaadanaya. waa runtii cadaalad darro meesha ugu dambeysay. qofka Soomaaliga ee ganacsiga iska lehna khatar buu ku sugan yahay. dadkan bin aadan weeye, waqti walba ina kici karaan. inaad millions adiga samaysid asagiina aad mushaar fiican uga qori weydid oo wax aad u kooban aad siisay, yani waa cadaalad darro aad u weyn. sababtoo maalin waxa arkaynaa ganacsiyada Soomaalida oo kacaya. maxay u kacay? lacag badan oo sameynaya haddana ganacsiga uu kacaya. sababtoo waxay tahay wuxuu ku xadgudbay shaqaalihiisii. هذه يعني وحوي وضل ماشي ولا لي قدام بيسي أرنتاس مركا وحو باهنا هاي وحو إيش نكاس إن لسيو شنكونو كين يشيلنا ولا كنت دول أقولي أنت مالنتين وحو إيش إن قد الله سيو لانش بينها كنتم شيلين وهاف $1 نص دولار يعني تاسو $1 كديو سي دad kale Soomaalida ee ndegeysanayo u fahmaan. marka waa la yaabay waxaan ku yiri see macquul taasaysa oo wuxuu yiri wax kale aan sameeyay ma lahan, shaqo kale ma heli karo. marka wax de waa ku khasbanahay buu yiri. waxa laga yaabaa marka qaar wuxuu lacagtaas aan qaadanay hadba xoogaa waxay u baahan yihiin ama caruurteedii guriga inaan ku bish inay dhamaato yiri anoo 5 kun ba isticmaalay oo bil intay dhamaato kirana laga sugayo ayaga xoogaa waa sax dakhligooda hoos ay u dhigi karaan. laakiin mar walba kuma filna qof Nairobi jooga lacagtaas oo haddana muddadu shaqeynaya Ilaahay ku dhaariyay fiiri waa suuxi 2 saac ama 1 saac bar asaga inuu meesha jooga laga rabaa ilaa maghribkii 6. يعني fiiri Ilaahay baan ku dhaariyay
mid waa taas ilaahayna uga baqdaan shaqaalahaas madowga at least haddaad wax badan siinaynin $100 lacag ka yar ha siinin 10,000 shilin waxba kaa dhigi mayso maalintii baa waxaa samaysaa lacag ku dhow $10,000 baa laga yaabaa oo faa'iido inaa maalintii samaysay ama $5,000 $100 qof shaqaalaha ka siisay yaa rasuulallah yacni waxba inaysan kaa dhimayn waa hubaa aniga waqtiga waa la gaaray ama weli waxba ka hadleen yacni mawduuc cusub ballaaran yahay baa ka garanaysaa midda kale walaalayaal aan rabo inaan ka hadlo oo shaqaalaha qaabka ula dhaqantid qaab adag bay ula dhaqmaan oo qofkii yacni adoonka camal aan sheegayay adoon waan raacnaa isdilaaxaas waa qabatinay laakiin haddana qofku inuu ogaato inuu binaan adigoo kale yahay buu fasax kaaga baahdo ninkaas idin sheegay wuxuu ii sheegay xataa hal maalin mus off lahayn ayagu jimcaha ay gelin karo nastaan jimcaha ay gelin karo nasanayaan qof ay soo diraan buu yiri meesha store-ka alaabta la dhigo baan bangeeyaabir oo ka shaqeeya maalinta gelinka hore marka dukaamadu ay xiran yihiin dukaamada inta badan ka hadlayo ninkaan arkayna waa dukaamada cuntada is og yihiin ilaahay marka inay uga baqaan culimaduna arrintaa waa inay ka hadashaa oo arrintaas laga hadlaa waa dulmi lagu hayo dadkan aan u nimid ee aan la deganahay maxaan ku dhahay to ilaahay subxaanahu wa tacaala agtooda inaan markaa waddankeeni soo gubnay Soomaali baan hawas ognahay waddankeeni waa soo gubnay cadaalad darrada halis waaye yaana ku dheeraanin waxa rabaa inaan ku xujiyo ayagana dadka shaqaalaha ee ka shaqeeya townka meesha la yiraahdo Nairobi ee dadka Soomaalida kale u shaqeeya iyagoon Soomaalida ah dadkaas ayagana waxay ku jiraan dulmi aad u weyn kaasoo ah in ayagana waxa la siinayo oo yar iyo shaqadoo badan iyo sidoo kale qofkii aan loo ogolaanaynin allowances fiican yani allowance ana kama hadlayo dadka inuu noqdo يعني صح waa business inuu faa'iido sameeyo rabaa laakiin faa'iidada aad sameynaysid ya akhi yeysan noqonin faa'iido qofkii kuu shaqeynayay aad ku xadgudubtid tusaale ahaan qofka town ka shaqeeya transport isticmaalaya yani gaadiid uu ku tago shaqadii oo kaga soo noqdo waxa laga yaabaa 100 shilin maalinta transport in la yiraahdo waa okay way ku filan tahay qada waxa laga yaabaa in la yiraahdo lunch 100 shilin oo kale $1 town ku joogay muxuu ku gadan karaa is nothing marka dad waxa jira cunto u keena cuntadaas laakiin nafaqadaro ka qaadaya maalin walba bariis qalalan qof cunaya how is he seebuu noqonaya brain seebuu noqonaya seebuu shaqada qabanayna is too over marka maanta wanda waxaan leeyahay inaan ka yareyn karin ka raali ahaada hadaan dheereeyo maxay la ma koobi karo mawduucan waa mawduuc aad xasaasi u ah waa mawduuc u baahan dad badan inay ka hadlaan oo influence la'aan waxa laga yaabaa influence inuu yar yahay dadka gaarsiin karaan inay yar yihiin inay ka hadlaan arrintaas dulmigaas wadankiina kulay uu ka jira dadkina wadanka joogana arrintaas inay ka hadashaan qofka shaqaalaha xuquuq inuu siiyo tusaale ahaan Kenya oo kale aan baa joogaa minimum wage lacagta ugu yar ee qof shaqaalaha qaadan karo waxa la sheegaa inay tahay lacag hadda way kordhiyeen waa 15,000 bay ahayd $150 ugu yaraan qofka shaqaalaha waa in la siiyaa had maalinta yaanooyto sanadka hore markii la xuseeyay maalinta laborka shaqaalaha waxa laga dhigay 17,000 iyo waliba something $100 shilin baa raacsan waa lacag $170 u dhiganta in qofka la siiyo hadda huduma number la wada barnaamij la yiraahdo oo la ogaanayo qof walba meeshu ka shaqeeyo iyo wuxuu qaato markaas ay cadaan doontaa mid kale cuqubada keenaysa waxa kamid ah businesskaaga uu khasaaraya shaqaaluhu si daacad ah kugu shaqeynaya marka adigana maalin millions faa'iidaysid shilin oo ka yeeshan yani $10,000 faa'iidaysid asagana waxaas mushaar ahaan u siinaysid daacad uu kugu shaqeynayo uu ku xadaya maalin walbaana aragnaa wax la dad la xaday dad la dhacay businesskoodi maxaa keenaya dulmiga uu geystay qofkan dadkii uu dulmiyay u shaqeynayay Soomaalida garan waxa kamid ah waxyaabo la rabo in laga tago walaalayaal daahita mushaarkooda oo kale taas Soomaalidu inta badan way ku fiican tahay qofka waxay ku heshiyaan way siiyaan laakiin dad daahiyana way jiraan in ayagana Ilaahay uga baqaan waxa kale oo kamid ah dadka dukaamada dhararka ee islii ka shaqeeya waxyaabaha kale oo lagu dhaqmo in la yiraahdo shaqaalaha company-gu haduu faa'iido baa lagu siinayaa lacag baa lagu siinayaa maxaan ku dhahay to company-gu markuu intuu faa'iido